qaarada qaniga ku macdanta iyo shidaalka ahna qaarada labaad ee ugu weyn dunida dadkeeduna sida aadka u koriyo qaarada afrika waana qaarada dadkeedu saboolka yihiin laakiin dhanka kale waxaa jira dad hodan oo lacagtooda balaayin dhaafayso waxaynu soo qaadan doonaa qaar ka mid ah caruurta ugu qanisan qaarada afrika caruur markaan iraado waxa isla markii niyadaada ku soo dhacaya in hantida ay sheeganayaan ay tahay waalidkood balse waxaa jira kuwa hibo leh oo hibadooda hodan ku noqday dhanka kale caruurta waxaa ka mid ah kuwa laga yaabo inaad garaneyso balse layaab ay kugu noqoneyso markaad maqasho in liiska caruurta ugu hodansan qaarada afrika ay soo galeen haddaba ila soco sii daawa muqaalka Jana Daniel waa tiriish ahna film soo saare waxay u dhalatay Nigeria jilinkeeda waxay bilowday iyadoo 8 jir ah waxayna dhalatay sanadkii 2000 hantideeda ayaa lagu qiyaasaa $350,000 waxaana sanadkii 2019 guursaday siyaasi Nigerian ah Emmanuel waa YouTuber caan ah sameeysa muuqaal qosol leh laga yaabay inaad daawatay muuqaaladeeda YouTube-ka mag ankal Emmanuel waxay jilinka bilowday iyadoo 5 jir ah waxayna noqotay shactiroole caan ah sanadkii 2015 waxay ku guuleysatay bilada G Influencer Niger Delta Special Talent sanadkii 2016 waxaa casuumay telefishinka caanka CNN waxaana hantideeda lagu qiyaasaa ka badan 600,000 Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. What's that? Shh. Are you a graduate? I am a professor. Processor. Excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes. Because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. Emanuela. DJ Junior waa muusikiista South African waxaana sanadkii 2017 la aqoonsaday DJ-ga ugu daaday dunida waxaana galay buuga diiwaanada dunida sanadkii 2012 ayuu dhashay waxaana ka soo muuqday fagaarayaal caalami ah sida America Got Talent British Got Talent waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 1 milyan Monfa Junior waxaa dhalay mid ka mid ah bilyaneerada Nigeria waana cunug yar oo haysta lacag aan cadad yareen lacagtiisuna gaartay heer uu barkado waxaana ka mid yahay caruurta ugu qanisan wadanka ugu dadka badan qaarada Afrika soona saara shidaalka Nigeria kuna nool yihiin dadka ugu hantida buuran qaarada Afrika walow dadkiisu inta badan sabool yihiin hantidiisa ayaa lagu sheegay inay tahay 4 milyan dhaxal sugaa boqorka wadanka Morocco Hassan waxa uu dhashay sanadkii 2003 waana